Assalaamu calaykum dhammaantiin waan idin salaamay meel kasta oo ay joogtaan waxaan eegi doonaa kulamadii Premier League ee la soo ciyaaray iyo sidoo kale Barcelona iyo wacdaraheedii soo dhawaada marka hore YouTube-keena haddaad ku cusub tahay ku soo biir haddaad TikTok nagala socotana sidoo kale ku soo biir oo ka mid noqo baaweynta ku xiran Bill Sports aan ku horeynay kooxda Manchester City waxa ay 3-1 kaga adkaatay naadiga West Ham kulankan 3 goolba waxa dhaliyay Haaland kaas oo laga yaaban yahay wacdarihiisa 3 kulan ee Premier League oo ciyaaray waxa uu marayaa 7 gool ku darso Haaland 69kii game ee ugu dambeysay oo uu ciyaaray Manchester City waxa uu dhaliyay 71 gool taas oo ka dhigan cid samaysay inaysan horay u jirin Manchester City hadda kaalinta koowaad ayay joogtaa gool taariikhiyana West Ham ayay ka soo gaartay caawi hambaliyo Manchester City meel kasta ay joogtaan sidoo kale waxa soo ciyaaray Wolves iyo Nottingham Forest ciyaar barbardhac ayay ku soo kala bixeen taas oo ka dhigaysa Nottingham Forest 5 dhibcood inay leedahay halka Wolves ay ka leedahay 4 dhibcood hase ahaatee tani waxay faa'iido ugu jirtaa Nottingham Forest taas oo 5 dhibcood hadda yeelanaysa maadaama markii hore ay 4 dhibcood lahayd sidoo kale galabtay waxa soo ciyaaray Everton iyo Bournemouth gool ayay la hormartay taas oo 2 gool ay ugu bedeshay Everton hase ahaatee 2 gool ay keentay Bournemouth waxa ay ka yeeshay Everton in laga qaato 3 dhibcood oo Bournemouth xageeda sidaas ay ku maraan Everton wali ma helin wax boonti ah xilli ciyaareedkan bilowday 3 kulan ee ay soo ciyaartay sidaas waxa lagu kala aadayaa bishii fasaxayd ee loo ciyaarayay qaramada sidoo kale waxa soo ciyaaray Brentford iyo Southampton taas oo Brighton ay ku soo adkaatay 3 gool Nottingham Forest xilli dambe ayay goosha keentay hase ahaatee 3 dhibcood waxa soo qaatay Brentford taas oo ka yeeshay Brentford inay hadda ay leedahay 4 dhibcood aan raacinay Aston Villa waxa ay 2-1 kaga soo adkaatay naadiga Leicester City taas oo kula ciyaaraysay guriga Leicester City Aston Villa 2 gool ayay la hormartay walow xilli dambe Leicester City 1 gool keentay hase ahaatee sidaas waxay guusha ku soo raacday Aston Villa hambaliyo Aston Villa kulankii weynaa ee maanta la soo ciyaaray Arsenal tii ku dhacday waa la yaabay maadaama kulan waliya ay la ciyaaraysay Brentford saakay markaa muuqaalka soo galinayay kulanka maanta la ciyaari doona ee ugu soo horeeya Premier League waxaan ku dhahay Brighton waa cabsi Arsenalna waa u baqaya hase ahaatee Arsenal ciyaar hal iyo hal waxay la soo gashay Brighton Arsenal kulanku wuxuu ahaa kulan xiisihiisa sareeyo Emirates ayaa lagu ciyaaray Arsenal waxay hal iyo hal la soo gashay Brighton taas oo ka yeelaysa Arsenal inay hadda leedahay 7 dhibcood Declan Rice ayaa red card ka qaatay hase ahaatee Arsenal ayaa goosha ku hormartay mar dambe red card oo 2 jaale ah ayuu qaatay Declan Rice Pedro ayaa dhaliyay half time-kii dambe gool Pedro inaba caadi maahan waa kii ka dhaliyay Manchester United 95 minutes markii ay maraysay guushana siiyay Brighton hase ahaatee Arsenal waxa ay kaga dhigan tahay ciyaartan loose maadaama ay doonaysay inay badiso horyaalkana u tartamaysay sidoo Arteta sheegayna galabtay way socon weyday Barcelona waxay xasuuq u geysatay Real Sociedad taas oo ku garaacday 7 gool Barcelona maanta waxay cadeysay in ay rasmiyan u doonayso horyaalka La Liga walow Real Madrid ay ka jajaban tahay oo ay 5 dhibcood hadda leedahay Barcelona gooshi koobaad waxa uu dhaliyay Rafinha daqiiqadii 20aad hase ahaatee Lewandowski ayaa raacsaday taas oo Lamine Yamal caawinta ka helay Conte ayaa half time-kii daqiiqadihii lagu daray gooshi 3aad dhaliyay sidaasna waxa lagu kala aaday 3 gool aan keeber wax walba waxay isbedeleen markii Barcelona half time-ka ka soo laabatay Rafinha ayaa ku shubay daqiiqaduhu markay marayeen 64 kaas oo Lewandowski caawinta ka helay hase ahaatee 72 haddana markii ay maraysay isla Rafinha ayaa ku shubay gooshiisii 3aad kaas oo Lamine Yamal caawinta ka helay Olmo ayaa 82 ku shubay kaas uu ka caawiyay Torres sidaas ayayna 6 gool ku gaareen
Dhammaadkii ciyaarta 85 daqiiqo markii ay maraysay, Torres ayaa ku shubay kaas oo Rafinha caawinta ka helay. Rafinha waxa uu dhaliyay xilli ciyaareedkan hat-trick-giisii ugu horeeyay ee La Liga. 3 uu dhaliyay iyo 2 uu caawiyay. 5 gool ayuu maanta soo shaqaystay. Caawana sariirta ayuu madax u seexday. Barcelona waa ay ka miiraysatay Real. Hase ahaatee, Barcelona sanadan waxay doonaysaa inay ku guuleysato horyaalka La Liga kaas oo ay ka qaadi rabto Real Madrid haddaysan sida isku dhaamin. Dhammaantiin waa mahadsantiin muuqaalkaygan hadduu ku soo gaaray. Mar kale waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biirto oo ka mid noqoto bahweynta aan halkan ku saaxiibnay. Magacaygu waa Bila Sports.